daawade barnaamijka maanta waxaad ku maqli doontaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray guushiisii afraad oo xidhiidh ah ee tartanka israabeebka xisbiga jamhuuriga. sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa qof ayaa galkii dambe shalay isku gubay afaafka hore ee safaaradda Israa'iil ee caasimadda dalka Mareykanka. waa maxay sababta ka dambayso? barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. ku soo dhawaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. musharaxa ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray guushiisii afraad oo xiriir ah ee tartanka israabeebka ee xisbiga jamhuuriga, iyadoo oo ilaa 452,000 oo codbixiye ay codeeyeen. boqolkiiba 60 codadka South Carolina waxa uu helay codadka 44 ka mid ah ergada gobolka. guushaas ayaa la xaqiijiyay in Trump uu ku awood badan yahay inta badan codbixiyaasha xisbiga kadib markii uu ku guuleystay dhammaan gobolada uu ka bilowday tartanka xisbiga jamhuuriga ee kala ah Iowa, Nevada iyo New Hampshire, taasoo keentay in dhammaan musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ay isaga hor yimaadeen. natiijooyinka doorashada South Carolina ayaa tilmaamaysa in Trump uu leeyahay caafimaadka jireed iyo maskaxeed ee laga maarmaanka u ah in uu u adeego madaxweynenimada indhaha codbixiyaasha jamhuuriga, taasoo lid ku ah sida ay sheegtay Nikki Haley oo la tartamaysay. natiijooyinka doorashada asaasiga ah ilaa hadda waxay sidoo kale muujiyeen daacadnimo qoto dheer ee uu Trump ku raaxaysanayo, gaar ahaan mid ka mid ah saldhigyada codbixiyaashu muxaafidka ah. khudbadii uu jeediyay kadib markii uu ku dhawaaqay natiijada doorashada gobolka, Trump wuxuu iska indhatiray musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Haley, waxa uuna doortay inuu diiradda saaro ninka ay isku hayaan dimuqraadiga ee Joe Biden oo la filayo inuu kula tartamo doorashada bisha November ee soo socota. Trump ayaa yiri, runtii tani waa shay cajiib ah, waxay ahayd guulo weyn sidii aan filaynay. wuxuuna intaasi ku daray, weligeed ma dhicin ruux sidan oo kale ah xisbigu maanta uu ka midaysan yahay si ka badan sidii hore. Trump ayaa u tartami doona lugta xigta ee doorashada gobolka Michigan talaadada soo socota, halkaas oo la filayo inuu ka gaaro guulo weyn oo kale, taas oo kordhin karta cadaadiska Haley inay ka baxdo doorashada si taageerayaasha jamhuuriga ay u taageeraan Mr. Trump. daawada wali waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka raadka dhacdooyinka. qof ayaa gelinkii dambe ee shalay isku gubay afaafka hore ee safaaradda Israa'iil ee caasimadda dalka Mareykanka, iyadoo dhaawac culus uu soo gaaray qofkaasi. sargaal ka tirsan waaxda caafimaadka degdega ah ee dabdamiska ee Washington ayaa sheegay inay heleen warbixin ku saabsan in qof weyn uu isku gubay afaafka hore ee dhismaha safaaradda Israa'iil. wuxuu intaasi ku daray in xubnaha ka tirsan hay'adda sirdoonka ay ku guuleysteen inay damiyaan dabkaasi. sargaalka oo u hadlay dabdamiska ayaa tilmaamay in qofka isgubay la dhigay isbitaal ku yaala xaafadaasi, isla markaana xaaladiisa ay aad u liidato maadaama uu soo gaaray dhaawac culus. mas'uulkan ayaa faahfaahin ka bixinin aqoonsiga qofkan, xiriirka uu la leeyahay safaaradda Israa'iil iyo sababaha ku kalifay inuu isku gubo afaafka hore ee dhismaha safaaradda Israa'iil. booliska deegaanka iyo waaxda sirdoonka ayaa baaraya dhacdadan. safaaradda Israa'iil ayaa bartilmaameed u ahayd dibadbaxyada socda ee looga soo horjeedo dagaalka Gaza, kuwaas oo horseeday in Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah ay ka bilowdaan dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo Falastiin. laga soo bilaabo 7 Oktoobar 2023, ciidamada gumaysiga Israa'iil waxay bilaabeen gardarro ba'an oo ka dhan ah marinka Gaza, taas oo sababtay dhimashada ku dhawaad 30,000 oo Falastiiniyiin ah iyo burbur weyn oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaale ee marinka, isla markaasna la go'doomiyay, iyadoo ay jirto eedeymo ka dhan ah Israa'iil oo hortagta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda